السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أقيات يوتيوب إن سلامي عشان كان نحو حكو سابسين هاي سيدا أشرحني device back solution. device back solution معنيسي وحو ياهي برنامج مهم وكمبيوتر كا واحد ugu baahan tahay barnaamij installation loo baahan yahay inaad ku shubto kow computer ma u baahan inaad aqoon u leedahay ma u baahan inaad mataqaan khibrad leeyahay oo soo bartay hardware software lagu dhamaan muhiimadu waxay tahay flash kadibna soo downloadsatid flash ka ku shubatid install ma baahan flash ka dhexdiisa ayaa double click leedahay wuxuu ku sheegaa computerkan waxa ka maqan intaas feel u baahan isla markii aad leedahay ku shub isla meeshii feelashii u wata laakiin asaa wuxuu ka kooban yahay 12 GB dhibic 7 هنا هو فايل آد وين لكن قابل لو دالون كريسنا ويوترون تيجا سو دالون كريسنا برنامج كان يوترون تيجا وطا برنامج كان يوترون تيجا سو دالون كريسنا سا كدب سيدا سوق ولا مركا أنا بلاونه حبكا ودالون سيجا يو أصيغو أونلاين سيدا وحو قبلنا كدب مركا بروزر كافورتين نعرب فوكسيجا كريمكا أوبرا متكا دي استعمال شبه نعرب هذا كدبنا device back solution aku soo baxay ugu horeeya ku dhufso kadibna waa linki ugu horeeyo kadib marka ku dhufatid wuxuu ku siinaa laba file labadaba waa free wax lacag ma jirto muhiimadu waxay tahay labada file saa u download gareysadada muhiimada casharka marka faham kan waa online kanna waa full kan online waa 2 megabyte hore ka bobsina laakiin kan waa full waa 12 GB marka sidii u download gareysanaysaa mina waxa ogaanaysaa kan waa full system automatically asaga qaadanayo offline oo sameeyna kan laakiin waa online andis internet ma anfacay computer lagu keenay oda ka halaysan kalka ka halaysan waxa leedahay computer kan aga halaysan aqoon u leedahay professional madama sheegay computer lagu keenay wax ka qaban karin dibkeeda leedahay laakiin marka flash wadayd hoos kala soo bixisa dhag waaglinay automatic saa ku sheega wixii computer kan ka maqaf macnaheedu waa barnaamij cajiib ah bisraxa waa barnaamij aniga intaan isticmaalay computer sahla badana dadka computerada sameeyaan fiiri barnaamijkan aad u isticmaalaan iyo barnaamijyo kale laakiin kan internet mu baahnid wuxuu ku shaqeynaa window 10 and 8 XP Vista 7 kulli 64 bit 68 bit ku xirno installation mana barnaamijkan sidaan uu yahay kalkiisa nuucidiisana sidaas uu yahay sidii u download gareysaa hadii aad online download gartaa laakiin kana tijaabo fiirinayna si aanan hada u baahantahay old version oo kale hada u baahantahay oo si aadi kartaa laakiin download dhahno kadibna uTorrent ya muhiim okay leedahay kadibna double click automatic asaa ku soo qaadanayo kadibna failka intuu yaa ku sheega okay leedahay kadibna downloadka ayuu bilaabaa wajida sida uu wado kadib wuxuu sameeyaa in uu scanning ku sameeyo kadibna downloadka si toos u bilaabo marka aniga boos stop saahno failkan waa loo download gareysan yahay iska stop gareeno kadibna iska xir kan online caadi u soo dhalansi karta sidoo kale waa sahlan yahay dhib ma lahan laakiin kan sidaan ayuu kugu soo dagaa failka markaan download tagno marka sida kugu soo daga qaabka kugu soo daga aan rabnaa inaan aragno waa sidaan sida markuu kugu soo dago aan barnaamijka ku saarno marka hore si aan si nadiif u aragno kadibna waxaa leedahay right click extract here ayaa leedahay sidaan ayuu kugu soo baxaa markuu sidaan kugu soo baxo USB ga sidaan la ugu shubanaysaa kadibna double click leysanaysaa wuxuu bilaabaa inuu computer ka aqriyo sida ugu dhaqsiyaha badan computerka ku sheego scanning inuu saaro okay leedahay kadib wuxuu sameeyaa inuu computerkaaga fiiriyo marka aan fiirino marka waxa ku soo baxaysa sidaan ay ku qoran tahay device and software to be updated to uninstall we found it 24 macna 24 wali sida mago automatic daartina ku shubatid wixii computerka dhamasa ku shubay laakiin wuxuu raacinaa browser iyo waxyaabo u baahan tahay asaa hawsha qabanay laakiin kan muxuu sameeynaa kana marka shaqeynaa si computerkaaga
feelasha u baahanta adig si gooni ugu shubatid laakiin qofka automatic waa inuu taabsadaa si is hagaajiyo laakiin kan aniga waxaan rabnaa inaan ogaano si uu hagaaji lahaa asiga sida goonida automatic ugu jeeda feelasha ka maqan waa sidan isla markaa feel ku baahatid inaad install samaysid matalan midka koowaad aan ku dhufano matalan kadib wuxuu u jeedaa installation ayuu sameynaa waqti badan ma qaadanayso sababtoo failka wuxuu ku dhex jiraa 12 GB uu ku dhex jiraa wuu diyaarsan yahay si automatic asagu soo waana versionkii ugu dambeeyay install sameeyay kadib finish jiro okay that's it inta soo kaliya sameynaysa hadii auto uninstall aan inta dhinac ugu fadhiiso 19 ka dhiman uu ku dhameystiraa wuuna diyaarinaa marka waxaan kala rabaa inaan ku tuso windowgan goormee lagu shubay markaan tago software u baahan tahay matal markaa tagtid adaa u baahan tahay Firefox-ga adaa u baahan tahay Chrome Skype-ga matal uTorrent-ga adaa u baahan nahay kan hadhow ina markaa u baahatid ku soo shubatid free waa asigana asoo lacag insha Allah waan sharxi doonaa kadibna markaa dhinaca tagtid system-ka aan tagno operation system-ka tag kadib meesha waxaan ku arkaysaa fiiri waqtigii lagu shubay waa January 8 maalin Jimco ah tahay 6 saac habeenimo waqti lagu shubo macna ku sheega 2016 waxa systemka ku jira 32 inuu yahay Windows 7 Ultimate inuu yahay English waaye macna waxa ogaanaysa computerka wixii ku jiro dham macna waqti lagu shubay wixii dham si faahfaahin ah ogaanaysa magaciisa iyo wixii dham barnaamij aad u muhiimsan inaad ogaatid waxyaabo badan oo ka caawina marka u baahan tahay kale display-ga multimedia security-ga macnaha barnaamijkan haddii aad haysatid wax badan ay computerka ka bedeli kartaa oo cilada ka maqan macnaha ciladahan muhiimaddu waxay tahay marka start dhaadid my computer tagtid right click ku dheh kadibna properties tag kadibna waxaad tagtaa device manager kadib device manager waxa ku soo baxayo computerka device manager-ka meesha laga xukumo hadduu yahay network-ka fail waa kaasa hadduu yahay sound-ga hadduu yahay color-ka leeyahay waxaas oo dhan ogaanaysaa computerka wixii inta ka maqan jaallo dhamaad soo baxo kale waxaas dhan asaa hagaajinaya laakiin hadda inta jaallo ma lahan laakiin maxaa waaye failage oo ku jiro waa old laga yaabaa inay yihiin new version soo baxay shirkadii wax ka bedeleen si uu window ugu la qabsado versionada ugu dambeeyay mar kastaba inaad jeegrisid meeshaas kadib computerka ku shubo ay computerna saas ugu bedelaysaa insha Allah binaamijkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto barnaamijkan wax badan ayuu ku qabanaa computerka ka maqan dad badan oo ka sheeganaya su'aal badan soo weydiinayaan codka aga maqan markaan YouTube daawanayo macna codka si fiican waadax igu ma ahan macna ma qiyaasi kartid laakiin waxa ogaanaysaa computerka wixii ka maqan waxyaabo u baahan tahay wax u baahan computerka ku sheegayo wixii wax laga yaabo waxaan aqoon u lahayn inuu kale in ka maqan yihiin laakiin oo leedahay videoga imagena maxaa dhacay laakiin waxyaabahaas waxa ku ogaanay marka barnaamijka isticmaashid faham badan iyo khibrad badan ku ziyaadayso waana free lacag ma ahan barnaamijka muhiimad wax laga baahan download gareysa bis waqti inaad siisid barnaamijkan marka download gareysanaysidna windowga markaad demisid aad soo daartid kuma xirno messenger sidaad internet manager ka ku soo download gareysatid uu ka xirmaa mar qaarkood uu leeyahay failkan uu kala go'ay soo bila marka adoo mareysay 5 GB download gareysay hadii ka kala go hadana hada soo bila laakiin kan uu baahnid wax laga yaabaa bilaas ka qaadato 5 bir ha qaadato hadba internetka awood u leeyahay sidoo wax u download gareyn karo marka insha Allah bidna kareem wixii su'aalana fadlan hoosan comment ku soo qor ama email-ka noogu soo dir nala share garay fadlan insha Allah bidna kareem wixii su'aalan kala faa'iideysano assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan